kulan casho sharaf ah isla markaana lagu soo dhaweynayay wafdi uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu qabtay xarunta Maandeeqa oo ah maqaayad u diyaarsan soo dhaweynta iyo waliba martisoorka dadka maqaamka sare ka jooga bulshada Soomaaliyeed. kulankan oo qabanqaabadiisu ay lahayd maqaayadan Maandeeq oo garab ka helaysa jaaliyada Soomaaliyeed ee xarunteedii Istanbul ayaa waxaa lagu marti qaaday qeybaha ay ka kooban tahay bulshada magaalada. Ibrahim Maxamed Booday oo ah maamulka Maandeeq ayaa hadal soo dhaweynay goobta ka jeediyay. aan dareemayay masar maamus ku leeyahay dalka Soomaaliya sidaas oo kale anaga waxaan jeclahay caawa farxad loo leh in maqaayadda Maandeeq magacaas oo ka tarjumaya qarnadii Soomaaliya xashii Maandeeq iyo hogaamiyihii Maandeeq inuu caawa fadhiyo mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed saasaan waxaan dareemaynaa cashada aan caawa soo dhaweynta sameynay insha Allah waqti dhow madaxtooyada cashigeeduna rajaynaa dowladda Soomaaliya intaasi waa kaftan waxaan leenahay maqaayadda dhammaan cid walba oo Soomaaliya ku soo qabatay ama habriyeeda ku jiro ku qabato annaga waa jecelnahay soo dhaweyno. gudoomiyaha guddiga doorashada jaaliyada Soomaaliyeed ee Turkiga Axmed Sheekh Cabdulaahi Maadka oo ku hadlayay afka jaaliyada ayaa dhankiisa hadalka qaatay. Diligaas u soo shaqeeyay dacwada maanta ku maareynayno aan xasanayno iyo saxaabada kala soo shaqeysay iyo ummadda u imeeyay nasdartooda inuu arko inaga ka mid inta saddex xubno reer Soomaaliya Sheekh Sheekh Axmed iyo wafdigiisa iyo maamulka Maandeeq iyo kala duwan jaaliyada Soomaaliyeed waxaan salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dadka diraasay nafsi qof markay arkaan fiiris waxay ka abuuraan laba dhinac waxay ka abuuraan qofka muuqaalkiisa ama waxay ka abuuraan qofka dhaqankiisa dadka markay psychology wada qahay Sheekh Shariif qofka markuu arko laba shay oo soo dhacayso أنا مزكي على أي حد لكن الناس هم يبقى على الأرض ضد إحنا مقاتلين ضد كنا عدوك وأحفظنا المقاتلين ومضى وضل مش كنا برسل إلى مقاتلنا شخصيا في مش الموسى حسوسنا لابد الشيء ولا بتير أساسه قفك كرسي في السم إنه إلى المجال كسر وكل دلوقتي الله وتضحية مسكفس وأنا أغلب هالدرقات تحقق القانون كمان بحولك هنكتب منا dalkan soo xaalad adag oo hogaan kooxeed gacanta ku hayaan inta Soomaaliya uu raqiis yahay qofka Soomaaliya sharafkiisu yahay inuu soo kacay dad iskalido qaatay xildhibaan hore ahaana wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dawladda ku meel gaarka Sheekh Cabdulqaadir Cali Umar ayaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay. maqaayadan waa azumay sharafta leh Soomaalidu horta waa dad hal abuur oo meeshii ay yimaadaanba waxba isku dayaan waa arrin runtii aad u fiican weey marka waxaan anigu aan dhihi lahaa hal arrin oo maaragtay horey lagu guuleysan waayey reer Istanbul Soomaalida Istanbul joogta inay ku guuleyso taasi waxay tahay Soomaalidu wadamada ay tagaan dadaal badan ay sameeyaan ganacsigana ku fiican yihiin laakiin marka meel ku bataan iyaga maaragtay dhexdooda ay ka dhacdaan marka hadda guddi doorashada waa maqlay oo jaaliyada bal isku day horta inaad ku guuleysataan jaaliyad in la sameeyo halkan waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed meel badan ay tagaan weli ay ku guuleysanayeen meel ay yimaadaan oo ay oga yaraha ay ku bataan in jaaliyad sameeyaan oo ku guuleysanayeen jaaliyaduna waxa ugu fiican oo horumarka sameeyo weeye oo dawladda la mucaamala safaaradaha way ku xog doontaa jaaliyadu ogaada. gabagabadii waxaa munaasabada soo xiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. runtii fursad weyn ay tahay maanta inaan cashadan ka soo qayb galo aadaan uga mahad celinayaa runtii cashadan xambaarsan walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo waxaan ku yiraahdaa
dadaal iyo fikir maskaxeed sida aad sheegteen maankay deeqaysa insha Allah maanka deeqta Allah ka dhigo maanka deeqda intaas markaan ka gudbo wax ka wanaagsan qofka inuu ku noolaado dalkiisa ma jiraan qof walba Soomaaliyeed maanta inuu banaanka joogo duruufa keento qof walba waa jecel inuu ku noolaado dalkiisa inaan dalkeena banaanka ka joognana waxa uu keentay talaxumo Soomaaliyeed waxaan rabnaa in laga baxo talaxumadaas oo la helo dal sharci ka shaqeeyo dawladnimadu ka hirgasho qofka oo xor yahay oo xaqiijin karo waxyaabaha waafaqsan sharciga iyo qaanuunka dalka u yaala iyo dhaqanka wanaagsan ee dadku ay leeyihiin taasna iskama imaanaysa waxay u baahan tahay dadaal iyo gacmaha in la isugu geeyo runtii in haddana dad Soomaaliyeed oo horumar ku fikiraya oo banaanka jooga oo is aruursanaya oo wax soo kordhinaya jiraan ayada laftigooda waa arrin u baahan in la tilmaamo marka waa ku mahadsantiin dadaalka samayseen halkan waa imaan jiray waxaan maleynaa maqaayad dadka Soomaalidu ay leeyihiin oo laga cashay karo ma jirin marka waa ku mahadsantiin waan kugu hambaleyna runtii dadaalka samayseen Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal Istanbul.